Aspirinka kadib markii la laqo waxa uu safarkiisa ku qaataa ilaa iyo caloosha halkaas oo uu ku milmi doono raashinkii ku jiray ama biyihii wuxuuna isku bedeli doonaa milan uu raacsan yahay kiniiniga aspirinka ugu dambeyn wuxuu safarkiisa usii gudbi doonaa qaybta kale oo caloosha oo loo yaqaano mandhicirinta yarka ah halkaas oo ay ku taalo kumanaan tubooyin yaryar ah kuwaasoo caawiyo in qadi la nuugo especially epithelial cells loo yaqaano ayaa waxay u gudbiyaan aspirinka dhiigga halkaas oo uu ka bilaaban doono safar loogu xidhiidhanayo in lagu tago jirka iyo meeshii xanuunaysay iyadoo la sii mari doono meelo badan annagoo markaa halkaa ka ambaqaadayno waxaa bilaabmaya safarkii xagga dhiigga oo loogu gudbi doono beerka marka ugu horeyso molecuulka loo yaqaan aspirinka wuxuu ku dhagi doonaa qaybo ka mid ah albuminka waa borotiin uu soo saaro beerka kaasoo ka qayb qaato transportationka iyo qaaditaanka daawooyinka markii borotiinka uu ku dhago borotiinka albuminka markuu ku dhago wuxuu keeni doonaa qaybo ka mid ah inuu geeyo beerka halkaas lagu process gareyn doono balse waxaa jirto aspirinka qayb ka mid inay noqon doonaan free oo ay dhiigga dhex socon doonaan marka ugu dambeyn waxay tagi doonaan beerka halkaas oo ka bilaaban doonto shaqo in laga qabto borotiinadii albuminka waxyaabihii ay keeneen qayb kale oo free ah oo aspirin ka midna ay u gudbi doonto xagga wadnaha marka boqolkiiba 68 ka mid ah ayaa waxay u gudbi doonaan wadnaha laakiin intii albuminka qabsatay oo dhan beerka ayaa wuxuu marsiin doonaa laba process oo loo yaqaano metabolism halkani waa beerka waxaa ka dhici doono laba metabolism koowaad aspirin waxaa laga jari doonaa qaybta loo yaqaano ethanoic acid qaybta loo yaqaan ayaa laga jari doonaa waxaana loo bedeli doonaa salicylic acid kaasoo ku milmi karo biyaha waxaan laga saari doonaa kiliyaha sidoo kale waxaa laga yaabaa salicylic acidka in lagu daro mar kale glucuronide kaasoo ka dhigi doonto in ay u bedesho water soluble lagana saari doono kiliyaha haddaba aspirinka waa la burburin doonaa boqolkiiba 32 ka mid ah waxaa badbaadi doono boqolkiiba 68 oo gaari doona jirka haddii aad afka ka qaadato aspirin boqolkiiba 68 ka mid ah ayaa wax ku noqon doonaan wax loo yaqaan bioavailability ama jirka gaari doono halka boqolkiiba 32 ka mid ah ay khasaari doonaan balse haddii aad isticmaasho aspirinka cirbad ahaan ama aad afka ka isticmaasho wuxuu gaari doonaa boqolkiiba 100 wadnaha wuxuuna usii gudbi doonaa jirka iyo goobtii xanuunaysay halkaas oo xanuun baabi'i ahaan uu shaqayn doono sida aan wada ognahay meesha xanuunayso waxaa jirto maado loo yaqaano glandins taasoo inflammationka samayso xanuunkan u gudbiso sensory nerve ama neerfaha xanuunka qaado aspirinka markii uu gaaro goobtii dhaawaca ahayd ama goobtii xanuunsanayd waxa uu joojin doonaa soo saaritaanka prostaglandinska ugu dambeyn saaritaanka iyo ka bixinta jirka laga saarayo aspirinka waxaa ka qayb qaato beerka oo xubinta ugu weyn ah ugu dambeyn waxaa laga saari doonaa kiliya ilaa laga raaciyo kaadida qashin saarkeeda